wasiirka wasaaradda biyaha ee Jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye ayaa soo gaadhay waddanka Djibouti kadib casuumad uu ka helay dhigiisa wasiirka biyaha beeraha ee waddanka Djibouti Maxamed Cawaale. waxaana markii uu soo gaadhay waddanka Djibouti wasiirka ku soo dhaweeyay wasiirka biyaha ee waddanka Djibouti waxaana kulankani ku wehelinayay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Djibouti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed, wasiirka wasaaradda biyaha ee Jamhuuriyadda Somaliland iyo wafdiga uu hogaaminayo ayaa waxay soo kormeereen soo indhayndeeyeen warshadda biyaha macaan ka safaynaysa badda ee laga hirgelinayo deegaanka Dooraale ee waqooyiga ka xigta caasimadda Djibouti. waxaana markii ay soo gaadheen goobtaasi laga hirgeliyay warshadda biyaha macaan ka safaynaysa badda ku soo dhaweeyay injineerada iyagu gacanta ku haya dhismaha warshadaasi oo gabagaba ku dhow. waxaana la soo tusay qaybaha ay ka kooban tahay iyo sida ay biyaha badda uga soo saarto biyahana looga macaaneeyo. sidoo kale wasiirka biyaha ee Jamhuuriyadda Somaliland inta uu ku sugan yahay waddanka Djibouti ayaa waxay heshiis dhinaca biyaha kala saxeexan doonaan wasiirka wasaaradda biyaha ee waddanka Djibouti, wuxuuna sidoo kale la kulmi doonaa mas'uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadda Djibouti. Maxamed Jaamac Cawaale, warbaahinta qaranka Somaliland, Djibouti.